mar aniga safar baan ahaa mar diyaarad Mareykankan magaalo ila magaalo kursiyaas saa u fadhiyay kursiga igu xiga waxa fadhida naag oo aan malaynay inay waxay ahayd dhulkan Aasiyada ahayd meel Hindi waxay muslim ma ahayn mid Mareykan oo gaal ah cad ah geeska xagga dariishada xiga quraanka wardiga iska bilowday wardiga iska akhrisanay quraankayga yani hoos baan u akhristay cidna kuma dhibin cidna kii dariishada fadhiyay ee xagu shishay gaalki agta ka shishay ani ma badelinsanay waxaan arkay ninkiyo dhagaha cuncunayaano saas uu leeyahay boodaya waa kacaya oo fariisan mar dambe bay naagti waxay ugu leedahay intay igu jisay ugu tiri maxaad samaynaysaa maxaa kaasaan quraan bana khasarey كلام الله كلام ربي كسيتي نينكا سو ما aragtay ninka waa arka waxun baa cunaya oo boodaya oo kacaya waxay tiri waa arintaada adiga wado please stop شوي kan jooj waxaan adiga miyaad maqlays miyaad kugu dhibaya ma yitiri laakiin isaga waa dhibtaysan yahay dhibahay wax ku kacay ma garanay wax yaraan joojiyay ninka waa iska fariistay waa dagay quraanka markuu noqdo waa soo dhan baas la kacay dhagaha ka bood halka markaan ka baqayba inuu mid kale aniga ila ma hadli karo wax la yaab leh aniga ila ma hadli iyadu soo diray ilaa iga musnik subhanallah الملك العلا فالقرآن سلاح عظيم إلهي وحو النسي وحو دغمي كرا انجلين والله الذي لا اله الا هو هل حرف وكلام الله أي كحق بدن قنابل ذرية بمبا أتومك ميلا وكحق بدن لكن آوي ذاتك باليقين أي قلبي وضع الرتاس وشوف الله فالله يوفقنا وإياكم الله نوافجي